shaqayste si aan dadka u siiyo daawo xilli kasta taasoo u qoray dhaqtar. Waxaan u lahaan doonaa cilmi iyo khibrad. Waxaan jeclahay inaan noqdo duuliye ku socda samada dusheeda, taasoo aan ku barto Ilaahay cilmi siiyey. Waxaan jeclahay inaan noqdo macallimad soo saarta arday ku takhasusta culuumta nooc kasta iyo wax kasta. Waxaan jeclahay inaan noqdo garsoore si aan dadka u kala xukumo cadaaladda, waayo qofka cadaaladda wado wuxuu haysanaa Ilaahay hoostiisa maalin oo hoos dhicin. Waxaan jeclahay inaan noqdo tiktooreyso sidaan u saacido dadka xanuunsan ilaa oo ka soo laabto caafimaadkiisa idinka Ilaahay. Waxaan rabaa nin shiica noqdo markaan weynaayo, dadka inaan diinta baro markaan weynaayo, nin shiic ah noqdo dadkana diinta baro. Nabigeena wuxuu leeyahay qofkii Ilaahay khayr la baro diinta ayuu fahansiiyaa. Waxaan jeclahay inaan noqdo injineer wax qora oo sameeya guryaha iyo dhismaha. Caalamku waxaa ka dhisa dabaqyada haddii Ilaahay arko. Waxaan jeclahay inaan noqdo boolis si aan u xifdiyo amniga waddankeena, una hagaajiyo isku socodka waddooyinka, kana ilaaliyo wax walba oo waddanka khatar u ah. Ilaalino shacabka Soomaaliyeed. Dadkeen waan jeclahay xumaanta waa la doonayaa, samaanta waa doonayaa, nabadii doonanin jiro joog.